sida saxiixa ee ahlu sunnati waljamaaca ay qabaan waxay tahay waa inaan wax mustaxiilnimii ku jirin inuu ilaahay yimaado. aayaadka qur'aankina waa sheegeen, nebiguna waa sheegay sala allahu alayh wasalam, ilaahay waa sheegay inuu ilaahay imanayo. wa jaa'a rabbuka waalmalaku safan safa, waxaa imanaya rabbiga waalmalaku jinsiga malakna waa imanaya, malaa'igta ayaa imanaysa. safan safan yacnii sufuuf kala dambaysa xaalay yihiin malaa'igtu ayay imanayaan. ilaahayna wuxuu imanayaa lifasli alqadaa'i bayna khalqih, si uu khalaa'iqda u kala xukumo ayuu markaa ilaahay u imanayaa. imaatinka uu ilaahay imanayaana kayfkiisa iyo qaabkiisa ma garanayno, sida laynoogu sheegayn u rumaynaynaa. oo nebiga sala allahu alayh wasalam awila ma odhanoo daahirkeeda ka leexiya. haddii waxa weeye imaatin ilaahay imanayo la ictiqaadiyaa oo daahirkaa lagu xambaaraa aynay sax ahaynna nebigu waa caddayn lahaa sala allahu alayh wasalam, waayo isaga ayaa qur'aanka bayaaminayey. wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim, waxaannu kugu soo dejinnay baa ilaahay yidhi qur'aanka, waxaannu kugu soo dejinnay si aad dadka ugu caddayso kan loo soo dejiyey. nebiguna sala allahu alayh wasalam bayaan kaafiyuu shareecada caddeeyey. in markaa la yidhaahdo ilaahay baa imanaya, hadday noqon lahayd shay markaa tashbiiho kufriya ay noqon lahayd oo daahirka in la ictiqaadaa aynay bannaanayn, oo sidaa in la itlaaqa aynay bannaanayn, nebigu waa bayaamin lahaa, waa caddayn lahaa. waxaana markaa qaacidadu ay tahay ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac. caddaynta wakhtigay ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigaa oo uu caddayn waayaa. ijmaac baynay ku bannaanayn oo biijmaaci alculamaa waxay kuma bannaana bayaankaa wakhtiga loo baahan yahay nebigu inuu ka dibdhigo sala allahu alayh wasalam. saas aawadeed bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen haddii waxa weeye daahirkaa in la ictiqaadaa ay xaaraan noqon lahayd, kufriya tashbiihna noqon lahayd, ilaa wuxuu caddeeyey sida loo istijoonayo, sida kaadida la ysaga biinayo, yacni markaa gacanta midig markaa inaan xubinta taranka lagu taabanaynin, in waxa weeye bidixda lagu istijoonayo, in waxa weeye dhagxanta lagu istijoonayo, kaadida la yskaga biinayaa in laga dhigo tiro kala dhiman oo witri laga dhigo, yacni marka ayuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam. kullu daalika isagoo caddeeyey inuu waxa weeye ashyaadii waaweynaa ee kufrigu ka dhalanaya inaanu caddaynin, dee ma suurtoobi karto, mid dhici karta ma aha, mid dhici karta ma aha. saxaabada qaarkood sida salmaan alfarisi markay dadka qaarkood ku yidhaahdeen callamakum rasuulullahi kulla shayin xata alkhiraa'a, rasuulkii ilaahay waa idin baray ama rasuulkiinni waa idin baray wax kasta, kulay ku tahay yacni sida markaa saxarada laysaga bi'inayo kulay ku tahay waa idin baray. markii sidaa lagu yidhi wuxuu idhi nacam, yacni wuxuuna baray in waxa weeye markaa inaanaan midigta ku istijoon buuna baray, aanaan xubinta taranka midigta ku taaban buuna baray, inaan 3 dhagax markaa ku istijoonno, kaadida iskaga biinno, istijmaar ku samayno, 3 dhagax inaannu kaadida iskaga biinno ayuuna amray. marka waxa weeye sidaas ayuu sheegay. marka mawdicu shaahid waxay tahay yacni marka callamakum kulla shayin xata alkhiraa'a, wax kasta waa idin baray, kul saxarada sida waxa la ysaga biiyo kulay ku tahay. marka acdamu alashyaa inaannu dadka barinoo u caddaynin oo hadal dawaahirtiisu kufri tahay loo sheego, haddana aan loo bayaamin miyay suuragal tahay? maya. saas aawadeed ayaa imaam abu muxamed aljuwayni waalidu imaami alxaramayn, imaamu alxaramayn aabbihii ayaa wuxuu yidhi yacni waxaan eegaa buu yidhi nusuusta qur'aanka iyo axaadiista nebiga ayaan eegaa buu yidhi. yacni markii hore wuxuu tilmaamayaa ta'wiilka iyo ashyaada inuu ku soo barbaaray. waa culammadii shaaficiyada waaweynaa ee asxaabu wujuuha shaaficiye ahaa, kitaabkiisii waa la hayaa, kutubtii kale culammada kale qortay waa la hayaa, ahlu sunnuhu ay caddeeyeen, salaf iyo khalafba ay caddeeyeen. ta'wiilka la awilayo daahirka laga leexinaya waa xaadisa, waa soo darriyey. wax saxaabadii nebigu ogaayeen ma aha, wax taabiciintii ogaayeen ma aha, wax a'immadii waaweynaa ogaayeen ma aha. 4 imaamee markaa madaahibta ay u kala abtirsadaan ta'wiilkaa kumay sugnayn, a'immada kale xadiidku kumay sugnayn. waa ta'wiil laga keenay muctasilo iyo jahmiyo iyo ciddi raacday, wax laga keenay weeye. waa wax xaadisa, waa wax marka waxay nusuusta dawaahirteedii khilaafsan. alimaam abu muxamed aljuwayni waa a'immadii shaaficiyadii waaweynadee qarnigii
afraad iyo qarnigii shanaad awalkiisii noolaa 438 ayaan filayaa inuu dhintay. bayhaqi bay isku waqti ahaayeen, alimaamu albayhaqi bay isku waqti ahaayeen. kitaabkiisa annasiixa sifaadka ku saabsan wuxuu ku qorayaa odhanaya iyadoo aan markaa ta'wiilkaa ku soo barbaaray buuri oo mashaayikhda waaweyne cilmiga aan ka bartay aan qadarinaya buu yidhi oo markaa aan ku sugnaa buu yidhi ra'yigaas oo markaan eego iyaga qadarkooda oo qiimo weyn ila lahaa yacni nusuustii baan eega aayaadkii qur'aanka iyo axaadiistii nebiga markaasaan waxaan arkaa buu yidhi nebigu inuu sidaa u itlaaqi jiray, qur'aankaa dadka sidaa inuu u bari jiray, axaadiistana inuu sidaa u sheegi jiray, majliska rasuulkana sala allahu alayh wasalam cid waliba inay soo xaadiri jirtaan garanayaa buuri oo waxaa iman jiray kii caalimkaa iyo cilmiga lahaa, kii mutacallimkee wax baranayey, kii aan cilmiga lahayn, kii hadda islaamay, kii wasaniga ahaan jiray, kii reer miyiga ahaa ee markaa jaafka ahaa, bimacnaa ruux reer miyiga aan waxba garanaynin markaas oo qaarkood masjidka ay ku kaajayeen oo aan cilmi lahayn ayaa majliska rasuulka soo xaadiri jiray. markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam axaadiistaas sidaa ugu sheegay. waxaan eegaa buu ihi markaa wuxuu ka daba keenay daahirka ay ictiqaadinayna inuu yidhaahdo xaraf sidaa sheegaya kuma arag. hadday waajib ahaan lahayd nebigaa caddayn lahaa, nebiga ayaa caddayn lahaa. marba haddaan caynkaa la sheegay sidaan ilaah iyo rasuulkiisu u sheegan waa in loo sheega. xamaad ibnu ismaaciil ibnu abi xaniifa inaan markaa waxa weeye tafiirtii abi xaniife ka mid ah awow buu u yahay abu xaniife ayaa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi wajaa'a rabbuka waalmalaku safan safan, yacnii ilaahay baa imanaya malaa'igtuna waa imanaysaa. mid baan waxaan ku idhi buu yidhi haddii la yidhaahdo ka warran malaa'igtu iman maysee amarkoodaa imanaya. markaasaa igu yidhi buu yidhi waa kufriya waa gaalnimo. kii aan weyddiiyaa saa igu yidhi. markaasuu yidhi oo maxay gaalnimo u noqotay malaa'igtu iman mayso amarkoodaa imanaya oo ay gaalnimo u noqon weyday? ilaahay ma imanaya amarkiisaa imanaya, ila isku meel baa lagu sheegay wajaa'a rabbuka waalmalaku safan safan. waa xuja qaasima, usuurtii salafku ka mid yahay. kutubtii culammada salafku qoreen waxaa lagu wareegayaa falagga markaysagaa muta'akhiriini waxay qortay baa lagu wareegaya. markaasaa leeyahay fulaan iyo fulaan oo qarnigii 7aada, qarnigii 8aada, qarnigii 9aada, qarnigii 12aada, qarnigii 13aada, qarnigii 14aada, intaasaa lagu wareegaya. war culammadii hore kutubtay qortay meeday? qarniyadii khayrka lahaa kutubtii la qoray meeday? imaam axmed kutubtuu qoray meeday? oo marka waxa weeye ardaydii shaafici kutubtay qortay meeday? muzani kuwuu qoray meeday? qarnigii 3aad iyo qarnigii 4aad iyo qarnigii 5aad kutubtii la alifay meeday ee ictiqaadka ahay? quruuntii khayrka lahaa kutubtii la qoray ba la soo baxa. waa cajaa'ib. marka waxa weeye sida saxdii waxay tahay waa in daahirkaa sida loo sheegay loo rumeeyo, laakiin 2 shay baa lagu darayaa. maxay tahay? tashbiih waa la nafinaya, waxaa la odhanayaa sida ilaahay u imanaya lama mid aha sida makhluuqaadku u imanayaan. laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir. imaatinka ilaahay imaatanka khalqigiisa lama mid aha. aayad qur'aanaad diidaysa laysa ka milihi shay walam yakun lahu kufuwan axad falaa tadribuu lilaahi alamhaal. haddii la yidhaha imaatinka ilaahay imaatinka khalqiguu la mid yahay waa tashbiiho waa gaalnimo. shayga labaad muxuu yahay? kayfka iyo qaabka waa laga gaabsanaya. walaa yuxiituuna bihi cilma, ilaahay cilmi ku koobi maayaan. kayfiyadda ma garanayno iyo qaabka ee sida allah inoo sheegay in u rumaynaynaa innagoo kayfkana ka gaabsanayna. ya'tii bilaa kayf, kayfaynu u garanayna la'aanteed buu ilaahay imanaya. labadaa qodob waa muhim. marka waxa weeye yacni caynulxaqi weeye, mid walbana nusuus bay ku fadhidaa. kayfka in laga gaabsanayo maxaa caddaynaya? waxaa caddaynaya walaa yuxiituuna bihi cilma. a'immadii salafkuna waa kuwaa sheegaya inuu waxa weeye yaji'u bilaa kayf, yacni istawaa calaa carshihi bilaa kayf. yacni kayfka, kayfiyadda iyo qaabka waa laga gaabsanaya. intaa waxa weeye sifaadka kale halka la mariyey baa la marinaya. xaq waa saas. waqtigaa dhacay halkaa inoogu joogo. wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.